Geeridii hooyo Faadumo waxay guri kasta oo deris la ahaa u ahayd naxdin, laakiin Laylo oo markaas sidee jir ahayd, waxay u ahayd dhimashada farxaddeeda. Markii ciidda lagu rogay hooyadeed, Laylo waxay dareentay in naxariistii dunida ay ku dhibtootay. Aabbaheed Ismaaciil, isagoo raba inuu gabadhiisa u helo qof xanaanaysa, wuxuu guursaday Xaliimo. Xaliimo waxa ay ahayd haweenay laba wajiile ah. Dadka hortooda waxay ku ahayd eedo naxariis badan, laakiin marka albaabku xirmo, nolosha Laylo waxay isu beddeshaa cadaab aan qiiq lahayn. Laylo hadda waa 13 jir, laakiin gacmaheedii yaraa waxay u adkaadeen sidii qof xoogsato ah, wejigeedana waxaa ka muuqda diif iyo diidmo ay nolosha ka qabto. Labada dunida ee hal guri ku dhex yaalla. Subax kasta xilli ay xataa shimbiruhu hurdaan, Laylo waxay u kacdaa inay qabato shaqo aan dhammaad lahayn. Gacmaheeda biyaha qabowga iyo biyaha kulaylka u dhex waxay ka dhigeen kuwo jeexjeexmay inta ay iyadu qolka jikada ku dhex jirto. Carruurta Xaliimo waxay ku jiraan qolal diiran, iyagoo ku riyoonaya mustaqbal qurux badan. Xaliimo waxay xaqirtaa cunnada ay Laylo cunto. Wixii haraa ah ee carruurtu ka tagto ayaad leedahay, ayay ku qaylisaa. Mararka qaar, Laylo waxay seexataa iyadoo gaajaysan, caloosheeduna ay xanuun la shanqarayso. Waxa ugu xanuunka badnaa waxay ahayd markay aragto aabbaheed oo u keenaya hadiyado carruurta Xaliimo, iyadana aan xataa la weydiin ma dhammaysay mise wad dhowdahay. Eedayntii been abuurka ahayd. Maalin maalmaha ka mid ah, Xaliimo waxa ay weysay sad dahab ah. Waxay ogayd halka ay dhigatay, laakiin waxay rabtay inay Laylo ka saarto guriga ama ay ka dhigto mid aabbaheed ka xanaaqo. Ismaaciil. Gabadhaada maanta xatooyo ayay bilowday, ayay ku qaylisay, markii uu ninku guriga soo galay. Ismaaciil isagoo aan waxba hubsan, ayay caro indhaha ka qabsatay. Wuxuu u yeeray Laylo. Isagoon hadal weydiin ayuu dharbaaxo kaga dhuftay wejiga. Laylo dhulka ayay ku dhacday, iyadoo naxdin iyo xanuun isugu darmeen. Aabbe ma qaadan, wallaahi ma qaadan, ayay ku ooyday, laakiin Xaliimo ayaa hadalka ku celisay, waa tuugad, hadday ooyeyso waa xeelad. Habeenkaas, Laylo looma oggolaan inay guriga dhexdiisa seexato. Waxaa lagu xiray qolka weelka lagu dhaqo ee dhabarka guriga ku yaalay. Waxay u seexatay sidii cunug yar oo dhibban, iyadoo madaxa saartay good duug ah oo ay hooyadeed ka tagtay. Buuggii sirta xambaarsanaa. Laylo waxay lahayd buug yar oo ay ku qori jirtay dareenkeeda, maadaama aysan haysan qof ay la hadasho. Habeen kasta waxay ku qori jirtay warqad ay u dirayso hooyadeed oo geeriyootay. Maalin Ismaaciil oo guriga keligiis ah, ayaa galay qolkii yaraa ee Laylo si uu wax ugu raadiyo. Wuxuu arkay buuggii oo sariirta hoosteeda yaalla. Waxa uu furay bogga koowaad, waxaana ku qornaa. Maanta waa maalin kale oo adag hooyo. Eeddo waxay igu tiri adigaa hooyadaa dilay markaad dhalatay. Hooyo ma runbaa? Aabbe maanta waa uu i garaacay, laakiin ma aanan ooyin marka uu i garaacayay, waayo waxaan xasuustay sida ay gacmahaagu ii salaaxi jireen. Hooyo, halkan cidlo ayaan ku ahay, miyaan kuu imaan karaa? Ismaaciil gacmihiisa ayaa gariiray. Waxa uu furay bog kale. Cuntada carruurta eeddo way macaan tahay, laakiin aniga haraaga iyo hambats ayaa la i siiyaa. Ma dhibsado gaajada, waxaan dhibsadaa in aabbe uusan i eegin markuu guriga yimaado. Ma waxaan ahay gabar xun, mise waan fool xumahay? Goor ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen. Ismaaciil indhihiisa waxaa ka soo daatay ilmo qoomamo leh. Wuxuu u cararay xagga jikada si uu u raadiyo Laylo. Wuxuu arkay iyadoo daciif ah, midabkeeduna isbeddelay, xumad aad u sarraysana ay hayso. Waxay isku dayaysay inay weelka dhaqdo iyadoo gariiraysa. Laylo, ayuu ku qayliyey, isagoo laabta ku qabtay. Laakiin Laylo si naxdin leh ayay uga naxday, iyadoo moodaysa inuu mar kale garaacayo. Aabbe, ha i garaacin, waan dhammeeyey shaqadii, ayay ku tiri cod aad u tabar daran. Ismaaciil wuxuu ogaaday inuu lumiyey gabadhiisii isagoo nool. Xaliimo markay u timid si ay been kale ugu sheegto, Ismaaciil wuxuu ku yidhi hal eray, bax. Gurigayga ka bax. Natiijada iyo murugada. Laylo waxaa loola cararay isbitaalka. Waxay qabtay nafaqo-darro baan iyo niyadjab aad u weyn. In kasta oo ay dhowr toddobaad kadib soo kabsatay, haddana dhoolla caddaynteedii hore dib uma soo laaban. Ismaaciil wuxuu ogaaday in guriga uusan ahayn derbiyo iyo saqaf, balse uu yahay naxariis iyo kalgacal. Laylo hadda waxay la nooshahay aabbaheed, laakiin xasuusta sannadihii ay eedadeed la noolayd, waxay ku reebeen nabaro aan weligood aan bogsoon. Habeen kasta markay seexanayso, waxay eegtaa sawirka hooyadeed, iyadoo og inay tahay ubax qalalay, oo aan weli helin biyo ku filan oo uu dib ugu soo noolaado. Dulucda sheekada.
Sheekadani waxay xasuusin u tahay aabbe kasta iyo qof kasta oo mas'uul ka ah ilmo agoon ah. Ilmaha agoonka ah ma rabo lacag iyo dharka ugu qaalisan, wuxuu u baahan yahay gabbaad uu ka dareemo naxariis. Nabarrada jidhka way bogsadaan, laakiin nabarrada nafta waxay qofka la koraan ilaa uu ka gaboobo.